Soomaaliya maamka aan doonayadana inaanu gacan siino adeer waxaan u taadeynayaa dadaalkooda magaalada Xasan Sheekh la shaqeeyo Xasan Sheekh annaguna wixii tala oo siinayna taleena waa ninkii Faysal Cali Waraaba ahaa ninka idin leh madaxweynaha dowladda federaalka Xasan Sheekh Maxamuud hala garab istaago ay وقالوا لي إذا ما ضينا إسكو ترسلنا يجي دولة الصومالي هاي كذبنا ممكن ما يصير الله بنا يعني جمهورية الصومالية بقص الله بنا ما في أنا إذا ما دي هوك الله قد جاي وضعنا وحي وهري ودي تري الروح والبو كدرك سين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وعنا ونكسن أخيار تقييمها قاية له ميل كستا جوجتان إيو سكستان ودي سنسان كسو دواد عمانتي وررك إنيهن داوا ذي أرنتن وأرن فجعون نقطي أنيجوا ليابي وأرن هدي لقفلين قف موادن مثل مدحوين اسكو شرحها مثل مدحوين ودنك صومالان إنو كان نقربو maanta inuu Soomaaliya erey asag uu ka soo qaado erey wanaagsan markii ugu horeysay 30 sano ilaa 35 sano ayna dhaxday markii ugu horeysay oo erey nin Somaliland ka imaaday masna madax Somaliland mise madaxweyne Somaliland ninka waa madaxweyne isku sharaxo madaxweyne wadanka waayo xilkaas ayuu doonayaa ilaa haddana wuu taagan yahay waa nin hadda doorasho rabo in la doorto marka waxay u egtahay in arrintan ay isbedelayso maalmo dhow waxaan ka hadlaynay in Soomaaliya iyo Somaliland ay heshiiyeen in dawladda isku soo darsado wuxuu sheegayaa ninkan waa arrin la yaab leh ninkan hadii waa inaan la shaqeyno leeyahay madaxweyne Xasan Sheekh waa in ciidanka isku darsanaa hadii waa arrin nin kasta uu la yaabay nin kasta oo maqlana uu fikir kale iyo gadaal u laabasho kale iyo wax jiro waayo Faysal Cali Waraabe ma ahan nin hadda soo baxay ma ahan nin siyaasadda hadda soo galay ma ahan nin wadanka xil ka soo qabtay hadda oo masana hal xilkii wadanka hadda u jooda ma ahan nin hadda soo baxay mise baraha bulshada soo hormuqdo ma aha ninka waa ninka Somaliland inta badan siyaasadeed ka soo dhaxmuqday waa nin yar ma ahan marka arrintan oo maanta uu la soo istaagay uu leeyahay Xasan Sheekh aan caawino horeyna uu caanayay Soomaaliya uu ka sheegay xumaata oo dhan wax kasta oo dhan madaxdeedii dadkii Soomaaliya oo dhan inuu maanta uu ku soo dhiirado ninka asaga shaati kala soo gasho maanta uu leeyahay waxaan rabaa inaan dawladda Soomaaliya aan la shaqeeyo waxaan rabaa dawladda Soomaaliya inaan dawladda isku darsano waxaan rabaa Xasan Sheekh in garab la siiyo waxaan rabaa in dawladda la garab marka waa arrin fajac noqotay waa arrin la yaab noqotay marka maxaa ku kalifay kolay siyaasad hoose ayaa jirta kolay waxa muuqato fashil ayaa muuqda waayo dawladdii awalka hore dawlad dhisan oo hadii waxay ahayd qaatimo dhinaca ka taa oo cid badan isku imaanayso oo hadii dawladii loo gaar isku reebayaan aan go'na leh marka su'aashan hadda meesha muuqato waxa waaye ma waxa ku kalifaysaa ninkan maadaama Somaliland hadii qaatimo maanta ay gooday oo ay gaar u istaagtay oo qaatimo maanta ay isbawaa dhigtay oo leeyahay hadii gaar baan u istaagay anigana state baan yahay gaar madaxdayda leeyahay madaxweynaha gaar ay ul dooranaya hadda waan ognahay Xamza inuu meeshan uu marinayo oo federaalka dawladda uu marka ayada uu rabay inuu ku casuumay oo uu leeyahay hadii hor u socda uu u dagaalamayo midaas miyaa ku kaliftay fashil siyaasadeed ayaa u muuqata inay ka jirto Somaliland oo wixii hadafkii raadinayeen ee sidii ku raadinayeen inay hadda ay ka halawday inay gadan ku soo hoosgad badan dawladda Soomaaliya oo ay leeyihiin hadii anagiyo waa isdhiimnay anagiyo dawladda si wada qaybsan karnaa hadii hantina meesha way jirtaa ayadana oo shidaalkii iyo dawladdii hadii waxaan ognahay hanti badan inay badda ku jirto oo in badan loo dagaalamayo haddana hadii Mareykankii iyo hadda in la dilaacay la rabo oo qandaraasi iyo heshiis la soo galay waa la soconay hadii taas miya ay kan leeyihiin aan ka faa'iideysano oo wadanka Soomaaliya aan kala faa'iideysano federaalka dawladda Soomaaliya waan ku jirnaa kamid baan ka nahnay hadii aan wada qaybsano saldanadan iyo waxaan la qaybsanayo hadii aan dawlad madax banaan oo gaar u taagantahay wixii Soomaaliya hadda iska goonayo waxba lama qaybsan kari laakiin hadiiba dawladda kamid aan yahay ma wax la qaybsigaas jirta oo qaybsadaas miya ku kaliftay inuu ninkan maanta saa u hadlo madaxweynaha inuu ereyga sheego madantaas ku kaliftay misane hadii fashil jira siyaasad fashil siyaasadeed jira
haddii beel meel uu istaagtay noqoni meelna meel kastana waa laga soo xirxiray cari ilaahay dowladdii iyo meelshii ay ku cabanayeen iyo qaramada midoobay iyo ingiriis iyo kanow kuusow sidii loo lahaa wixii oo dhan waa lagu fashilmay inay dhibkoo dhan meesha ka bilaabatay dhibkoo dhan waxay ayagina yihiin ayaa nin kasta u muuqataa nin dowladda meel karo jiray iyo nin waddanka joogaba fashilkaas miya uu maanta ay ugu soo cararayaan dowladda soomaaliya oo xasan sheekh maanta ay u leeyihiin hala taageero dowladdii aan isku darsanno ciidamadii aan taageerno xasan sheekh aan garab istaagno waxa noocaasa maanta inuu ka hadlo ma taasaa ku kaliftay su-aashaas kolley waxa u muuqato waxaa waaye fashil inuu meeshu jiro waayo dagaal ayaa meesha ka dhacay hantidan iyo waxaan ma dhabey jirtay oo hadda intaasoo waqti baa la ogaa iyagoo ka hadlayaan masana sheeganayaan lama arkin marka waxaan hadda maanta kusoo kalifay oo maanta arrintan meesha ka dilaacday ay u eg tahay inuu raadinayo fashilkan ku dhacay dowladdii fashilkan somalilan ku dhacay fashilkan meesha la isku fashilmay oo haddii somalilan igadan inay noqoto beel meel degan oo ciddoo meel degan inay iska noqoto igadan isaaqo bay u noqotay meeshii wixii degan inay uun marka ayada ay u ekaan karto dee hadhow madax bannaani iyo waxaan soomaaliya inaan ka go-aan rabaa ma noqonayso marka hore waa la isku jiray oo khaatuma ayaa garab siinayso oo ciddaas ayaa reer khaatuma dagaal sida dagaalamayeen oo dhinacaasi ka dagaalamayeen oo sidan aan isku garabsanno aan soomaaliya aan siin ooga go-on ay lahayn maadaama ciddan ay kasoo go'do ay gadan nin kasta oo meesha bannaan waaga ugu bariyay noqotay marka waxay u muuqato waxaa waaye aan inteen ku gabadaa aan ku gabado xasan sheekh iyo diiraddii marka ayada al-shabaab lala dagaala dowladda la xoreynaya ciidamadii aan ku gabado anoo maanta laga sheegay xasan sheekh ha la caawiyo xasan sheekh si ha la yeelo ayay meesha u muuqataa inay fashil meesha uu jiro waxay ay raadinayeen inuu meesha ka soconaynin ayay u muuqatay wayna arkeen faysal cali waraabe inkastoo muuse biixi hoos wixiis arrintiisa ay u jirtay oo arrin hoose inuu ka dhameeyo meeshii uu rabay oo waqtiba hadda waqtiga jabuuti waxyaalo badan laga wada hadlay xasan sheekh isaga oo la rabay dowladda in mar hore heshiis la galo dagaalkan khaatuma ka dhaca ma ogi ayaa keenay dhib kale iyo inay marka ayada heshiiskii wixii uu gadaal u dhaco laakiin meesha waxa jira waxaa waaye waxaan waqti hore laga soo heshiiyey waxaan waqti hore ayay meeshii muuse biixi iyo xasan sheekh ay ka heshiiyeen laakiin marka ayada ahayd lama shaacinin marka ayada ahayd dadka lama qaybsanin wax yar unbaa iska ogaa wax yar oo sirsir unbay iska ahayd laakiin hadda waxay ka muuqato meeshii mase arrinta dilaacday waxaa waaye in faysal cali waraabe asaga laftiisa uu meeshii uu kasoo baxayo uu leeyahay aan laftay madaxweyne inaan noqdaan laga yaabaa aan wejigii sii hagaajisto aan wejigii meesha dhow aan dhigan lahaa iyo dadkaan ku gaban lahaa iyo dadkii aan garab istaagi lahaa iyo dadkii aan rabeen inaan ku gabado aan jeclaan lahaa ayaa maanta aan magacooda sheego soomaaliya aan maanta aan sheego inaan taageeri rabo soomaaliya inaan taageero weyn u buuxin aan meesha iga muuqato birsa hadda markaa meesha imaadane haddiiba lacala aan meesha soo istaagane waxaan leeyahay ana soomaaliyay waa ku taageersan yahay aan wada shaqaysano anigana haddii wadankayga iyo dhulkayga hala taageero wadankayga dhulkayga wixii igu soo hala isiiyo dowladeydina dhinacaydan kaga jiro marka sida u muuqato taas waay horta laakiin meeshan jeceyl somalilan ay u qaban soomaaliya meesha ma jirto waa la wada ogyahay intaasoo qof iska ilmo ah oo weliba iska muwaadin soomaaliyeed hadduu maanta meesha tego waa kii dhibka arta la marin jiray oo somalilan ay u ogoleen qof shicib oo soomaaliya ka imaado inuu meesha uu dhul dhigo oo lug uu meesha dhigo oo bahdilaad iyo rafaad dhib ay ka mari jireen maanta inay dowladda soomaaliya ay taageeraan xasan sheekh hala taageero kan hala suubiyo dhahaan waa horta kolley munaafiqnimo meesha ka muuqato dantooda baana gashay taas baana u muuqataa meesha marka waxaa leenahay yaa wejigii ha soo noqdaan dhimala waa ummad soomaaliyeed soomaaliya awalka hore waxay u reebaysa in soomaaliya ay kamid noqoto ay kala goon bay ahayd hadda day soo noqdaanna soo dhawaada la leeyahay laakiin wax jaceyl oo meesha ka jiro inaysan jirin ayaa u muuqataa meesha noona muuqata anagoo dhan wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakatu